kulanti wacan daawada halkan waa barteena YouTube ee halbeega wararka qodobada xilligan aanu idiin hayno waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo deegaanka Jicibow oo ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maxaa ka jira warka sheegaya in taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo taliyaha iminka Mahad Salaad ay ku wada sugan yihiin dalka Qatar iyo kulanajiis oo kulankaasi ku biiray. Faahfaahin dheeraad ah ayaan idin la wadaagi doonaa. Sidoo kale waxyaabaha aan idin hayno waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan ee dhacbartamaha Soomaaliya wararka xilligan ka imaanaya oo sheegaya in dagaallo xooggan halkaas ay ka soconayaan iyo booskii uu ka geeriyooday taliyihii booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo mas'uul cusub loo magacaabay. Waa kuma mas'uulkan cusub xilalka hore uu soo qabtay iyo sidoo kale khibradiisa dhanka amniga ayaan idin soo gudbin doonaa. Wahagaag daawadayaal ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan isla markaana ay qayb ka ahaayeen saraakiil ciidan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka degmada ayaa waxa ay gaareen deegaanka Jicibow oo hoostaga magaalada Buuloburd ee gobolka Hiiraan. Wafdigan iyo ciidanka la socday ayaa waxa ay dhiirigelin iyo garab istaag ugu tageen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo dagaal adag oo waqti badan qaatay kula galay deegaanka Jicibow dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay weli ku hareereysan yihiin buur ay ku jiraan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo ciidanka ay sheegeen inay doonayaan inay nolosha ku qabtaan. Dagaal qaatay muddo ku dhow 12 saacadood oo xiriir ah ay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya waxa ay sheegeen inay ku dileen ku dhawaad 100 dagaalame oo Al-Shabaab ka tirsan halka ay sidoo kale sheegeen inay isku soo dhiibeen tiro kale. ururka Al-Shabaab weli kama hadlin dagaalka duleedka Buuloburd ka dhacay waxaana khubarada dhanka ammaanku ay sheegayaan in dagaalka Jicibow uu ka mid yahay dagaalada khasaaraha ugu badan lagu gaarsiiyay ururka Al-Shabaab. ciidanka dawladda ayaa helay xogta koox ka mid ah Al-Shabaab kuwaas oo doomo uga soo gudbay webiga isla markaana doonayay inay kala go'doomiyaan isu socodka magaalooyinka Buuloburd iyo Beledweyne isla markaana wadada laamiga ah ay xanibaan. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee macuusleyda ayaa dagaal adag la galay Al-Shabaab waxaana halkaasi ka dhashay khasaare tiro badan. mas'uuliyiintu weli si faahfaahsan ugama hadlin khasaaraha soo gaaray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka isku dhinaca ah. wixii warar ay arrinkaasi ku soo kordha waanu idin la wadaagi doonaa balse markan wararka ka imaanaya magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku wada sugan yihiin agaasimaha hay'adda NISA ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo agaasimihii hore ee hay'addaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana kulankooda ku heliya sida xoguhu ay sheegayaan xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulan oo horey uga mid ahaa saraakiishii sarsare ee NISA. weli si faahfaahsan looma oga sababta saddexdooduba ay ku kulmeen Qatar balse xogaha hoose oo ay helayaan warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in dowladda Qatar ay u yeertay xubnahaasi. Mahad Salaad oo sabtidii aynu ka soo gudubnay xilli gabaldhac ah diyaarad ay ka qaaday magaalada Muqdisho ayaa labadii cisho aynu ka soo gudubnay waxa uu ku sugnaa hotel ku yaala magaalada Dooxa iyadoo xogaha hoose ay sheegayaan inay socdaan qorshe ay damacsan tahay Qatar oo ah inay isfahmaan saraakiisha NISA ee hadda iyo kuwii hore. taliska nabad sugidda Soomaaliya kama aysan hadlin safarka Mahad Salaad ee Dooxa waxa uu daaran yahay waxaase saraakiisha la shaqeysa agaasimaha NISA ay sheegayaan in socdaal shaqo uu baxay. Fahad Yaasiin iyo Mahad Salaad ayaa iyagu dagaal wajiyo kala duwan ah ka dhaxeeya taas oo ay ugu weyneyd arrinta Ikraan Tahliil oo midba midka kale uu ku eedeeyay dilkeeda inuu wax ka ogaa. xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana saaxiib dhow la ah Fahad Yaasiin ayaa qayb ka ah xubnaha dowladda Qatar ay u yeertay inuu halkaasi xaadir ku ahaado. waxaana si dhab ah loo ogeyn ilaa iminka waxa laga wada hadlayo oo ay dowladda Qatar mas'uuliyiintan isugu geysay wadankeeda. sirdoonka waddanka Masar oo gacan saar dhow la leh agaasimaha NISA ee Soomaaliya Mahad Salaad ayaa waxa ay sheeda kala socdaan Dooxa waxa ka socda iyo kulamada xukuumadda Qatar ay wado ayna ku kulmayaan Mahad Salaad oo xiriir aad u dhow ay la leeyihiin iyo sidoo kale agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. xogtan ayaa waxaa lagu daawacay mareegta ama bogga caasimadda online waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan inay suuragal tahay in labada agaasime ee hay'adda NISA kii hore iyo midka hadda jooga isfaham buuxa ay ka gaaraan kiisaska siyaasadeed isla markaana tabashooyinkooda la xaliyo. markana wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maanta mar kale uu dagaal culus dib uga qarxay deegaanka Ceel Macaan oo u dhow degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan isla markaana dhaca wadada saaran laamiga ilo dadka deegaanka ah ayaa waxay sheegayaan in dagaalka uu dhaxeeyo ciidamada macuusleyda iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaankaasi Ceel Macaan lagu magacaabo. dhinacyada dagaalamaya ayaa waxay isweydaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo rasaas xooggan laga maqlayo deegaanka Ceel Macaan iyo agagaarkiisa.
dagaalka ayaa waxa uu daba socdaa howlgal ay shalay deegaankaas kula wareegeen ciidanka macawisleyda waxaana kadib dagaal rogaal celis ah kusoo qaaday koox ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab. ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka socda halkaasi, waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan iyadoo labada dhinacba gurmudi ay helayaan. gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada huwanta ah iyo kooxda al-shabaab, waxaana shalay dagaalkii ugu cuslaa uu ka dhacay deegaanka Jicibow oo hoostaga degmada Buulaburd ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka qayb galeen dagaalkaas oo ay ka qayb galeen ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS isla markaana adeegsanayay madaafiic culus. dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaalka Jicibow ayaa waxa ay sheegtay in ay halkaasi ku dishay ama khasaare ay ku shaacisay ilaa 200 oo ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab. qaarkood nolosha ayaa lagu qabtay, kuwana waa ay dhinteen sida ay sheegtay dowladdu. ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu maanta magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. Xijaar ayaa xilkan waxa uu magacaabay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin, kaas oo bedelaya taliyihii dhowaan ee geeriyooday Farxaan Qaroole. wareegtadan ka soo baxday xafiiska taliyaha booliska Soomaaliya ayaa lagu faray taliyaha cusub inuu guto waajibaadka shaqo ee loo igmaday, iyada oo sidoo kalena la amray saraakiisha kale ee booliska inay la shaqeeyaan taliyaha cusub ee la soo magacaabay. Muumin ayaa deegaan ahaan ka soo jeeda Galmudug, waxaana maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay in xilkan loo magacaabayo isaga oo taageero ka helayay Axmed Qorqor oo ah madaxweynaha Galmudug iyo mas'uuliyiin kale, qorshahaas oo ugu dambeyn guuleystay. maadaama maanta lagu dhawaaqay magacaabistiisa, sidoo kale gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin ayaa horey waxa uu soo noqday taliyaha nabad sugidda Galmudug isaga oo ka soo shaqeeyay Dhuusamareeb iyo deegaano kale oo Galmudug ka tirsan. Allah u naxariistay taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo ahaa sarkaal dhalinyaro ah ayaa waxa uu ku geeriyooday qarax toddobaadkii inuu kasoo gudubnay ka dhacay deegaanka Basra oo uu tagay howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab, waxaana geeridiisa si weyn looga dareemay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. si kastaba taliyahan cusub ee maanta la magacaabay ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin adag oo ay ugu horeyso wax ka qabashada amniga caasimadda oo iminka ah mid aad looga deyrinayo, iyadoo mas'uuliyiinta dhanka amniga ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid kasii dareysa. wararkii ugu dambeeyay oo aad xilligan kala socoteen barteena YouTube ee halbeega wararka xilligan waa naga intaa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar boggeena YouTube adigoo muuqaalka la wadaagaya saaxiibada waad ku mahadsan tahay la socoshada wararka halkan aan kusoo baahino.